Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaashayda qiimaha iyo qaalaha meel kastaad joogtaan ku soo dhawaada shabakadeenna wararka ee Silic 24. Maanta waxaan idiin haynaa faallo gaaban oo aan kaga hadlayno dekedda Maydh ee gobolka Sanaag oo Somalilan ay dib u dayactirayso dibna u samaynayso. Laakiin su-aasha taagani waxay tahay xaggee baa loo marayaa? Waddadii loo marayay ee Tabca ama dooga Tabcad kolba dadka qaar sida u yaqaanaan xilligan maaha waddo ay dadku ku socdaali karaan. Inkastoo muddo badan laga waday dib u dhis, laakiin way ka baaxad weyn tahay waddo ay sameeyaan dadka shicibka ahi. Waxaanay u baahan tahay gacan dowladeed. Faaladeennan baynu doonaynaa waxyaalo badan oo gobolka Sanaag iyo xeebihiisa inaynu kaga hadalno. Daawasho wanaagsan. Gobolka Sanaag waa gobolka Jamhuuriyadda Somalilan ugu baaxadda weyn, laakiin xilligan waa gobol ay ka muuqato tacab dhan kasta, hadday tahay waddooyinka, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay waxbarashada. Dekedda Maydh oo Jamhuuriyadda Somalilan ay dhisayso lagana maalgeliyey sanduuqa horumarinta Jamhuuriyadda Somalilan waxaa la sheegay inay ku baxayso 3 milyan iyo xoogaa. Dekedda Maydh haddii si fiican loo dhiso oo loo maalgeliyo waxay kafaalo qaadan kartaa ama dabooli kartaaba baahi ka jirta geeska khaasatan Somalilan. Laakiin xilligan waxaa loo diyaariyo inay noqoto deked kalluumaysi oo keliya oo aanay wax kale ka soo degin. Inkastoo wasiirada qaar ay sheegeen inay noqonayso deked alaabooyinka yaryar. Sababta ugu weyn ee xeebaha Jamhuuriyadda Somalilan ay u shaqayn waayeen waa waddo xumo. Xeebaha ku teedsan gobolka Sanaag waxyaalihii ay shaqadooda u gabeen waxaa ka mid ahaa waddooyinka oo may jirin meel loo maraa. Inkastoo waddada Burco iyo Ceergaabo imika Jamhuuriyadda Somalilan muddo 7 sannadood ay la xarbiyeysay kuna guuleysatay inay samayso, laakiin waxaa jira waddo culus oo adag oo buurale ku taalla oo loo yaqaano dooga Tabca oo isku xidha magaalada Maydh iyo Ceergaabo. Waddadaas ilaa iminka waxaa la isku dayay in la sameeyo, laakiin way adag tahay in dad shicib ay sameeyaan, waxaanay u baahan tahay gacan dowladeed. Waddadan iyo dekedda dekedda Maydhba waxay ku jireen heshiiskii uu Korneyl Caare berigii la galay madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumaddiisa in waddadaas iyo Maydhba dib loo sameeyo. Laakiin cidda iminka gacanta ku haysa Maydh ee sameynaysaa maaha cid hore u soo samaysay dekado hore oo la hayay referensigooda, laakiin waa shirkad cusub oo la yidhi qandaraas ayaan ku siinay, lamana garanayo xilliga ay dhammaynayso. Dekedda Maydh waxay u baahan tahay waddo loo maro oo isku xidha Ceergaabo iyo Maydh si dabeetana ay u noqoto badeecadaasi badeecad wada gaadha geeska iyo Jamhuuriyadda Somalilanba. Bal waxaynu eegi doonaa bal dekeddaasi haddii lagu guuleysto saameynta dhaqaale ee ay ku yeelato Jamhuuriyadda Somalilan. Halkan waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa Maydh iyo halka loo marayo. Waa anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac idinkaga tegaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Meel kastoo aad joogtaan nabad qab iyo nabad diino.